بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناقصين داودياشا naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ah dood xiiso leh oo u dhaxaysa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya halkaas oo magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya ay si weyn uga socoto hawsha isla markaana ay marayso meelihii ugu xiisaha badnaa. waxaa hadda gacanta lagu hayaa dhamaystirka hawlihii la xiriiray xildhibaanada baarlamaanka iyadoo musharaxiintu ay magaalada Cadaado ka wadaan ololahooda oo aad u ballaaran waxaana magaalada oo dhan lagu xardhay sawirro iyo halkudhagyo musharaxiintu ay ku tartamayaan. haddaba halkan maanta waxaa inala jooga 6 ka mid ah musharaxiintaas oo aanu doonayno in muddada saacadda iyo barka ee nagu soo socota ay halkan ku yeeshaan haddii alla uu qadaro dood ay uga hadlayaan arrimaha tartankooda inaga oo weydiin doona su'aalo isku mid ah. aan idin soo dhaweeyo dhammaantiin musharaxiinta sharafta leh waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah iyo sida aad nooga aqbasheen inaad noo timaadaan. su-aasha ugu horreysa raba inaan idin weydiiyo waxay tahay waxaad u tartamaysaan inaad u adeegtaan waa dadka gobollada dhexe oo aad madaxweyneyaal u noqotaan. dabcan Soomaaliya oo dhan waxa ugu horeeya waa amniga. gobolladana duruufaha amni ee dalka ka jira ayay la wadaagaan. su-aashaydan dhex taalahay waxa weeye sidee rabtaa musharax inaad u wajahdo oo aad u xasiliso amniga dadka ku nool gobollada Mudug iyo Galgaduud. waxaan ku bilaabi doonaa musharaxa geeska ah musharax kastana magaciisa oo saddexan iyo xilka uu tartamayo inuu ku bilaabo ayaan jeclaan lahaa. بسم الله ومشرح أحمد معلم فقي أحمد كم إذا مشرحين توتاجن دولة قبلتك حلك مدحوين لماذا دولة قبلتك قلمدوك إن هدي أن كفاية استوقت جيجا إن أمنيجو والله دبرت من أبد قليدو والله دبرت أمت كستابة يكون علونيس أنت أن أمني نجاهلين وحا قصبا إن لسويديو maxaa amni darro keeni kara oo sababi kara in amniga ummadii haysatay waxdaan ka soo qaadno amniga inuu yahay shay dabiici ah oo qof kastaaba uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado. maxaa keeni kara amni darro waxaan isdhihi karaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay cadaalad darro. ummad meel ku nool markay dareento cadaalad darro noocay rabtaba ha ahaato heerkay rabtana ha gaartee waxaa imaanaya cadaalad darradaas in laga dhiidhiyo dhiidhiskaasna wuxuu keenayaa in xasiloonidii la haystay ay meel looga dhaco kadibna ay timaado xasilooni darri. amniga marka guud ahaan waa mowduuc ballaaran. aniga PhD-dayda ayaa ku saabsan amniga waana ku soo shaqeeyay practically shaqo ahaanna waan ku soo qabtay. waa shay ballaaran meel uusan nolosha ka gelinna ma jirto. amniga siyaasadda ayuu galaa wuxuu galaa dhaqaalaha wuxuu galaa arrimaha bulshada iyo caqiidada iyo dhaqanka ummadda in la ilaaliyo wuxuu galaa biyaha wuxuu galaa cuntada wuxuu galaa meel kasta oo nolosha ka mid ah amnigu waa galaa. laakiin haddii aan u soo gudubno amniga hadda aan loola jeedo Soomaalidana inta badan marka laga hadlayo amni waxaa laga hadlaa midkaan qoriga ku salaysan laakiin qoriga midka ku salaysan waxaa ka horeeya midka siyaasadeed midka dhaqaale oo ah ciidamadaas amniga sugaya in dhaqaalahooda iyo daryeelkooda iyo agabkoodaba in la heli karo oo aysan gelin marnaba musuqmaasuq. taas markaan ka soo gudbo amniga haddeertaan loo joogo oo gobolladan Mudug iyo Galgaduud ama Galmudug la isku yiraahdo marka aan u soo gudubno 4 shay ayaan isleeyahay muhiim bay yihiin in laga hadlo. qodobka koowaad wuxuu yahay nabadgelyo xumo ku samaysantay dhaqan soo jireen oo hore oo aanooyin qabiil ilmaha lagu barbaariyo dilal hore oo soo dhacay iyo aanooyin qabiil taasina la iska dhaxlo mar walbana ay noqoto qofkii inuu noqdo qof sensitive ah oo xasaasi ah oo wax kasto qofka soo gaara inay noqonayso inuu inta ka dhiidiyo wixii yaray loo adkeysan jiray asoo ku saleynaya wixii awoowayaashiis uga sheekeeyeen ayuu ka dhiidinaya halkaasna dagaal iyo nabadgelyo xumo ka imaanaysa. qodobka labaad wuxuu yahay colaad deegaameed lagu durugsanayo ceel iyo carshin 3 daqiiqo iyo nabadgelyo xumo ku timid kooxo nafraadisa sida burcadbadeedka iyo badeedka iyo dagaallo ideolojiyadeed sida al-shabaab iyo waxyaalaha la soo minguuriyey. marka waxaan dhihi lahaa waxyaalihii lagu xallin lahaa iyo qaabkii waqtiga awgiis intaasaan 4taas faktar ayaa sabab u ah deegaamadan in amni darro ka jirto. mahadsanid wixii ku dhiman gadaal baad uga darsan doontaa. waxaan siinayaa musharaxa kale ee dhinacayga fadhiya isla su-aashii amniga iyo sida aad u wajahayso. بسم الله الرحمن الرحيم
تيفيga aad u mahadsan yahay si aan waqtiga uga faa'iideysto طبعا amnigu waa baahida ugu weyn ee bulsho kasta oo ay qabto gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed oo aad moodo in lagu dhibaateeyay magacaygu waa Cabdikariin Xuseen Guuleed una tartamaya xilka madaxweynenimada maamul goboleedka Galmudug haddaan markaa si toos u galo qodobka koobaad oo aan ka bilaabayo waxay tahay maamul goboleedka Galmudug ee ka kooban Mudug iyo Galgaduud waxaa runtii ayaan fiican ah in maamulo kala duwan oo muddo soo jiray wax badanna amniga ka qabtay ciidamo iyo structure ciidamada leh inay hore u jireen ayadoo ciidamadaas kala duwan iyo maamuladaas ay lahaayeen laga faa'iideysanayo qodobka koobaad oo aan aniga diiradda saari doono waxay noqon doontaa inaan u howlgalo sidii la isugu dhafi lahaa loona mideyn lahaa ciidamada kala duwan ee maamuladaas kala duwan ay lahaayeen sida maamulka Galmudug maamulka Ximin iyo Xeeb iyo maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca intaba waxaan xoog saari doonaa muddada 6 bilood ee soo socota hadii aan ku guuleysto xilka madaxweynenimada inaan anko asaaso ciidan 1500 ah oo agabkooda iyo qalabkooda aan u howlgali doono in loo dhameystiro sidii amniga deegaanada oo idin uga qayb qaataan waxaan u howlgali doonaa 40% inaan dayactiro xarumihii iyo rugihii amni ee ay lahaayeen gobolada iyo deegaanada kala duwan waxaan runtii xoog saari doonaa maadaama bar qayb dhan oo kamid ah goboladani ay gacanta ugu jiraan nimanka sharwadayaasha ee Al-Shabaab sidii dib u xoreyn deegaanadaas loogu sameyn lahaa dadka deegaanadaas u dhashay oo ay dhibka iyo dhibaatada ku hayaan iyo tacadiga joogtada ahna looga dul qaadi lahaa waxaan aad xoog u saari doonaa sidii amni ma imaan karo haddaan bulshadu aysan amniga ka qayb qaadan sidii bulshada marka wacyigelin xoog badan loogu sameyn lahaa oo ay bulshadu ayada amnigeeda ay gacanta ugu qabsan lahayd kagana qayb qaadan lahayd sidii marka wacyigelinta bulshada ay u miro dhasho waxaan xoog saari doonaa muddada dhowrka bilood ee u horeyso si qalab iyo barnaamijyo warbaahineed oo uu leeyahay maamulka loo asaasi lahaa sida idaacad iyo TV maamulka asaga codkiisa ku hadasho sida loo asaasi lahaa si qayb lug leh uga qayb qaataan ugu dambeyntii waxaan aad xoog u saari doonaa sidii looga hortagi lahaa burcadbadeedka oo runtii aad moodo goboladan sumcadooda iyo dadnimadooda intaba inay aad iyo aad dhaawac ugu geysteen dhalinyaradaas xirfadda ka dhigatana loogu abuuri lahaa inay xirfado ay ku shaqaystaan loogu sameeyo waa mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay waxaan sii doonaa musharaxan kale ee dhinacan intaanan musharaxiinta dhinaca kale u noqon soo dhawow isla su-aashii aan weydiinay mas-uuliyiinta kale adoo magacaaga noogu bilaaba bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdi xasan cawaale madaxweynaha hadda xilka haya ee Galmudug ahna musharaxa maamulka Mudug iyo Galgaduud oo hadda halkan baarlamaankiisa la geelaalay waxaan rabaa su-aashan anigoo waqtigeeda ka faa'iideysanaya nabadgelyadu marka ugu horeysa waa asaaska nolosha bini aadamka weyn meel aan nabadi jirin waxba kama jiraan marka waa yani waxa weeye waa salkii weeye waa lafdhabarkii weeye waa nabadgelyo marka la yiraahdo ama amni laga hadlayana waxa weeye siyaasadda amniga waxa weeye waa siyaasad ballaaran waxaa ka mid ah siyaasadda muxuu ahaa dhaqaalaha waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta waxaa ka mid ah midnimada bulshada waxaa ka mid ah siyaasadda nabadgelyada mid garashada bulshada la maamulaya garaadkeedu meesha uu joogo ayaa qayb ka marka haddii ilaahay igu guuleeyo xilka aan musharaxa u ahay dowlad goboleedka Galmudug dadka reer Galmudug waxay ka bixi doonaan muddo dhibaatooyinka jira waxaana loo qaban doonaa marka hore dib u heshiisiin marka dambana in la mideeyo awoodaha ay leeyihiin ama xoogaga ama ciidamada dhammaan labadan gobol ka tirsan boqolka maalmoodna
in lagu xoreeyo de meel jirkaago hadduu dhinac ka jiran yahay dhinaca kale ma caafimaad qabo gobollada la haysto oo ay haystaan nimanka nabaddiidkaahi oo muddada 7 sanaa ku fadhiistay in waxay noqonayaan 100 maalmood in la xoreeyo oo dadka halkan joogaan iyagoo nabada ay dhulkoodii iyo dalkiiba ay dib ugu laabtaan ayagoon magaalo kale aan magan u noqon marka nabadgelyadu waa dhaqaale nabadgelyadu waa horumarka nabadgelyadu waa isfaham nabadgelyadu waa midnimo nabadgelyadu wax waliba oo bini aadamka wanaagiisa waxay soo galayaan nabadgelyada soo hoos galayaan marka siyaasadda nabadgelyadu ma aha wax 3 daqiiqo lagu koobi karo waxa weeye markeedaanu ka soo bandhigi doonaa marka maalinta baarlamaanka la hortagayo ayaanu soo bandhigi doonaa iyadoo qoraal ah inta aan sheegnay maaragtay waxaana weeye anigu waxaan ka soo shaqeeyey waxaan taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed baan soo noqday 3 sano 5 sanana waxaan soo noqday tali waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay Bashiir baan siinayaa magacaaga saddexan iyo xilka u tartamaysa bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaha Bashiir Diire Shariif xildhibaan musharax ayaana bahweynto dhan waan salaamaya intana dhegaystanaysaa meel kasta naga dhegaystanaya Soomaaliyeed maantay kulankaan aan meeshaan ugu qabtayna maaragtay aad baan u soo dhaweynaya aad baan ugu faraxsanahay arrintaan aan nabad la'aan waa nolol la'aan wey nabad la'aan waa caafimaad la'aan nabaddu qof walbay u baahan hadda caadaan joogno waxaanu ku joognaa nabad yaro ka jirtee maana joogneyn marka nabadda in wax laga qabto waa muhiim qodobka koowaad wey anigu waxaan qabaa nabad waxaa loo qaban karaa erayada aan maaragtay aabbayaasheen ugu soo koriyeen iyo awowayaasheen iyo inaan baabiino waxaa ka mid a iska celi qof kastoo reer mudug iyo galguud waxaa leeyahay hebel iska celi reer hebel iska celi horta erayahaas ka gudubna weleera waa halkaa dhaaf isxaan u suubi soo dhaweey intii diintu qabta ah haddaan dariiqaas barno waxaan qabaa wax badan soo dhaweyn doono waxaan kaloo aaminsanahay gobolkan dadka degan waa dadka Soomaalida maaragtay marka ugu fircoon oo dhaqsiyo nabadda gaari kara haddii heshiis iyo dibshiin loo suubiyo dibshiintaasna waqti yar lagu suubiyo waxaan rajeynayaa in loo dhiso ciidan wada jira oo ka kooban haddii ilaahay ugu guuliyo hawshaas oo ka kooban gobollada ay ka kooban tahay mudug galmudug ama ceelbuur ha noqoto ama ceeler ha noqoto ilaa Cawdaq iyo Balanbal aniga fursad gaar aan haystaayo dadkaasoo dhan waan dhex mari karaa waana socon karaa haddii ilaahay yidhaahdo guri aan ka qaloonayo male guri walba nabadaan u gelaya haddii ilaahay yidhaahdo taas tusaalahaas gaar bay tahay aniga waanu ku faanayaa wax ilaahay bixiyo weyn waxa anigu la yimid maaha nabad la'aan waa nolol la'aan midda kale Soomaaliya intii dagaaladu iyo colaad socotay anu nabad baan ka shaqeynayay safiirkii nabadaan anigu dadka qaarkiis waxay yaqaaneen Bashiirkii safiirkii nabadaan la yaqaan maadaama xamar dhibaatada ka jirtay nabad baan ka shaqeynayay goboladan nabad baan u yimid xardheer nabad baan u tagay ceelbuur ma gaarin laakiin xardheer nabad baan u tagay ceeldheer nabad baan u tagay caabud waxa nabad baan u tagay gaalkacay nabad baan u tagay marka aabihi nabadaan anigu marka waxaan ku talinayaa nabaddu waa nafta weey meelaan nabad oolin caafimaadna ma jiro waxbarashana ma jirto wada joogna ma jirto qof kastoo bini'aadana nabadda inuu ka qayb qaato ciidan la midaysan la dhiso wada jir la iska hilmaamo wixii dhacay oo idil la iska hilmaamo nin xasuustaa ma xiriiriyaali nin xasuusta shalay wixii dhacay maanta wax ma xiriirin karo walaalo colooba waa xabaal badiyaan baa li xabaashay badiyaan xoolo yareeyaan dhibaato dhan baabuwa waxaan rajeynayaa nabaddu inay furaha koowaad tahay waxaan rajeynayaa ninka nabadda ka qaadan kara qaybta libaax kow Iiraanka ayaan isfaanin kow Iiraanka rag badan laga yaabaa ila mid inay jiraan intii dagaaladu socotay aniga waxay suurta gashay Soomaaliya oo dhan inaan tago guri walba inaan tago meel walba nabad ka shaqeeyo Soomaalidu way taqaanaan Bashiirkii nabadda ay yaqaaniin Bashiirkii tabliiqa ay yaqaaniin marka nabaddu waa furihii Soomaaliya goboladan haddii loo soo biyo ciidan adigu 1500 ilaa 2 ku gaaraya waxaan aaminsanahay in muddo yar oo 3 bilood oo hawsheeda ku dhamaan karto haddii maamulka loo dhismo oo aan hawshaan isku afgarano oo madaxweyne ku doorano anigu waxaan ka mid noqon doonaa haddii la doortay haddaan doorarba dadka nabadda ka shaqeeyaan waa mahadsantii waa mahadsantahay waxaan ku xijinayaa siyaasiga kale dhinacaaga fadhiya soo dhawaad bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga Axmed Cabdisalaam ayaa la yiraahdaa waxaan u taaganahay xilka madaxweynimada maamul goboleedka Galmudug markood waxaan rabaa inaan u hambaleeyo xildhibaanadii maantay kaarkooda la siiyay ee beelahooda soo magacaawdeen soo xusheen sababtoo ah asaaskii maamulka halkaas uu ka bilowday
hawsha aan doonaynana salkii maanta ayaa loo dhigay. Midda labaad, waxaan rabaa inaan si practical aan ugu hadlo. Amni darrada gobolladan hadda maamulka maanta ay samaystay ee Galmudug waa gobollada Soomaaliya ugu amniga fiican markii dhinac laga fiiriyo. Sababtoo waa gobollo isu furan, waa gobollo aan aad u kala xirxirayn oo maamulo leh. Maamuladoodiina maanta ay shirkan ka qayb galeen intooda badan. Anigu marka koowaad waxaan qabaa shirkan ku dhiirigelinayaa in la dhammaystiro arrintaas. Sababtoo amni darradu waxay ka imaanaysaa in aan kala tagno haddeer. Maanta annagoo goobtii nabadda fadhina, annagoo fadhina goobtii maamulka, in aanaan ka soo qayb gelin ahlu sunna wal jamaaca maamulkeedii shirkan waxaan iclaaminaynaa amni darro inay sii socoto. Marka koowaad waxaan farayaa dowladda iyo mas-uuliyiinta gacanta ku haya shirka inaysan yaraysan arrintaas. Hore ayaan usoo aragnay Soomaaliya oo colaad iyo dagaal iyo dhibaato ka taagan tahay. Waxaan ku xallinay markii aanu intii naga soo horjeeday miiska inta keennay kuraasteeda uga tanaasulnay aanu keennay oo niri qaata kuraasta ku fadhiista si nabad loo helo. Maanta waxaan qabaa mas-uuliyaddaasi annagayna saaran tahay dadka maamulka, gaar ahaan dadka talada gacanta ku haya ee shirka maamulaya. Midda labaad, markii taal la helo oo aan dhammaanteen ka wada qayb galno shirka, waxa ku xigaa waxa weeye inaan ciidamadii la isku daro oo iyagoo is ogol oo meel walba jooga noloshoodiina laga fakaro la iskuna daro. Midda saddexaadna in deegaanada hadda runtii leeyahay shabaabka haysta kuma xoog badna sidaan ognahay. Wax kale uma baahna, waxay u baahan tahay midnimadeenna iyo beelaha deegaanadaas ku nooloo ka qayb qaata ayay u baahan tahay si degdeg aan uga xoreynna haddii la yidhahdo. Laakiin amni darrada iyo nabad darrada ugu weyn ee dalkan ka jirta waa gaajada. Dadka in fursado loo abuuro, in nolol la siiyo, in aan abuuro yacni fursado ay dhallinyarada kumaankunka ee hadda shaqo la'aanta iyagu ku keenaysa inay wax nabad darro abuuraya keenaan inaan ka fikirno. Nabad darrada siyaasadda oo ah deganaansho la'aanta dadku ay dareensan yihiin, oo ah dadku in aysan kala shaki qabaanna maamulkan dhismihiisa ayaa jawaabta koowaad ka tahay. Marka wax isku darsanee aan isaga dhammaystirno, kadibna dib u heshiisiinta aan dhammaystirno, kadibna aanu ka shaqayno sidii haddii la yidhaahdo maamulkaasi uu noqon lahaa mid dhammaan deegaanada dhan ka taabagala, isku waqti ka taabagala, ayaan la kala tegin. Intaa markaan kasoo tago, aniga waxaan isleeyahay qof xoogaal badan oo ah ayaa tahay deegaanada waxa ka jira muddo dheerna luku lahaa, inta hadda nabadda samaysana wax ka og. Marka arrintaas ayaan isleeyahay waxbaa laga qaban karaa. Waa mahadsantihi. musharaxan kaleeta ayaan sii doonaa, kadibna su-aasha labaad ayaan u gudbi doonaa. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan aad u salaamayaa baahda saxaafadda ee barnaamijkan soo agaagsantay. waxaan kaloo salaamayaa dadka sharafta badan leh ee doodan dhegaysanaya. waxaan kaloo salaamayaa inta hawada iyo TV-gaba naga daawanaysa. markaan su-aasha u imaado, horta amnigu waa arrin muhiima sida ay saaxiibada uga hadleen ayaan runtii ula qabaa. runtiina amnigu ma aha keliya qofka qoriga haysta oo qoriga laga dhigo, laakiin amnigu wuxuu u baahan yahay muxuu ahaa in waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo bulshada haysta wax laga qabto, sida ragga asxaabta kamid ah ay u magacaabeen, sida mataqaanaa dhaqaalo xumida wax laga qabto. midda kale, amnigu waxaad moodaa in lagu qaldamo oo loo yaqaano keliya askartu inay soo celiso amniga. amniga qof walba ayaa kula door, hadday noqon lahayd haweenka, hadday noqon lahayd culamaa udiinka, hadday noqon lahayd odayaasha, dhallinyarada, qayb kasta oo ka mida bulshooyinka. muxuu ahaa gaar ahaan gobollada dhexe markaan ka hadlayno, qof kasta door ayuu ku leeyahay amniga in wax laga qabto. maantana amni darrada jirtaa waxay tahay, ma jiraan horta hay-ado xoog badan oo dhisan oo amniga qaabilsan ma jiraan. waxaad maqlaysaa dadkii amniga ka shaqaynaya oo mushaar haysanin. waxaad maqlaysaa dadkii amniga ka shaqaynaya oo mataqaanaa la leeyahay muxuu ahaa intay gaajoodeen ayay isbaarooyin dhigteen. waa wax laga xumaada runtii. waxay ahayd resource-ka aan haysano, khayraadka aan haysano, wixii markaa la haysto oo maamulka ah uu haysto, waxay ahayd in loo qorsheeyo xibin fiicanna laga siiya amniga si amniga wax looga qabto. laakiin waxaad moodaa amniga in la dayacay. baahida ugu weynna waxay dhex taashay amniga. marka maanta runtii arrinta gobollada dhexe ka taagani, midda miyiga markaan fiirino, dadka miyiga ku nool waa colaad runtii ku salaysan laba dhinac. mid aana ah oo runtii
dhibaatooyin badan oo dadkan soo dhex yaalla oo aan loo garsoorin oo si cadaalad aan loo kala gurin. taas waxay u baahan tahay amniga qayb ka mid ay amaanaysaa waa in garsoor la helaa. yani garsoorkaas haddaan la helin waxba ma shaqaynayaan. dadku haddii garsoor ama cadaaladdaas ay ku qanacsan yihiin dadku ay helaan oo mataqaanaa loogana fadhiyo maamulka hadda dhalan doona inuu arrintaasi uu siiyo mudnaanta koowaad, waxbaa ka soo baxaya. amnigay qayb ka tahay, laakiin amniga waxyaabaha sii xumeynaya wax ka mid ah markaysa cadaalad jirin oo dadkii ay arkaan in cadaaladdoodii iyo xaqoodii la dudsiiyey, ayaguna waxay isku dayayaan inay mataqaana ka dabaaqaan. marka meeshaas ayay kasoo noqnoqonaysaa. marka runtii waxaan ku talin lahaa kow si wax looga qabta amniga. aniga kolley haddaan ku guulaysto maamulkan waxyaabaha aan mudnaanta sii doonay ka mid tahay oo mataqaana waxaan samayn doonaa guddi amni oo deg deg ah. aad baad umahadsan tihiin. su-aasha koowaad si aad uga jawaabteen waxaan idinka codsanayaa inaad maadaama waqtigooda ku yar yahay aad toos u aadaan jawaabta su-aasha oo waqti badan uuna hordhaca inooga dhumin. su-aasha labaad eena hortaallaya waxay tahay dadka gobollada dhexe ee aad u tartamaysaan madaxtinimadoodu waa dad kala qaybsan. tusaale ahaan galmudug baa jirtay, ximar yaxeeb baa jirtay, ahlu sunnaa jirtay, qaar ka mida oo hadda puntland iyo dadka gobolkan uu muran uga dhexeeya jira, qaar al-shabaab baa haysta. see siyaasad ahaan rabtaa dadkaas inaad u midayso? waxaan ku bilaabayaa cabdi qaybdiid. aad baa umahadsan tahay. waxa weeye arrintaas waxaa lagu midaynayaa marka ugu horeysa galmudug annagu waxaa la soo bilaabay sidii loo midayn lahaa dadkuna u gaari lahaa horumar iyo midnimo iyo nabadgelyo waarta ay u gaari lahaayeen. muxuu ahaa 5 ilaa 7 bishii labaad 2012 markii lay doortay kadib shirkii aan ku qabanay oo aanu la yeelanay muxuu ahaa ahlusunna waljamaaca magaalada kaalkacyo ayaanu bilownay. 2 sano iyo 4 bilood baan waxaan wadnay anigu aan hogaaminayay sidii mar haddii aan midnimo jirin inaan waxba jiri karin, nabadgelyo iyo horumar iyo dhaqaale iyo bulsho iyo wax la gaari kara ma jiraan. marka sidaa daraaddeed muddadaas ka bacdi shirarkii soo taxnaa oo lagu qabtay Nairobi, xamar lagu qabtay kii ugu dambeeyay 30kii bishii July 2014 lagu saxaay heshiiska maanta halkaan ku fadhino. waa midka saldhig aanu noqonay halkan in maanta la isugu keeno 3 maamul ee heshiiska ku saxiixday magaalada Muqdisho. waxa weeye shirkaani maanta wuxuu ku fadhiyaa dawladdiisa loo fadhiyo isku keenidii iyo dadaalkii loo galay. marka galmudug waxay u noqon karaysaa marka model 2 sano iyo 4 bilood anigoo 3 sano maandaatada haystay haddana 2 bilood ii harsan tahay xilligii lay magacaabay. maanta halkaan in la isugu yimaado waxay ku timid tanaasul, waxay ku timid muxuu ahaa u safrid, waxay u timid isqancin, waxay ku timid inaan la kala maarmin, waxay ku timid inta la kala maqan yahay inaan cidina gaar u gaarayn. sidaas way sida galmudug ay u tanaasushay magacii madaxtinimadii iyo muxuu ahaa maamulkiiba in halkaan la keeno. halkaas waxaa ka muuqata markii anigu haddii ilaahay idmo anigu aan maamulkaas ii sahliyo waxaad arkaysaan meeshaan marinayo, waxaad arkaysaan tillaabooyinka ku xiga waxa weeye in la mideeyo bulshada, laga saaro kalsooni darrada, dib u heshiisiin maaragtay loo sameeyo. waxa ay kala tabanayaan odayaal dhaqameedkooda ama dadka wax u gaara madax dhaqameedyada in la isu keeno, la siiyo workshopyo, la dhaqan geliyo, markaasna ay gaaraan tala ay ku midaysan yihiin. aad baad umahadsan tahay. waxaan ku xijinayaa axmed macalin fiqi. waa midda koowaade waxaan ku raacsanahay madaxweyne qaybdiid baan ku raacsanahay inta uu ka sheegay. shirka kan ayaa la isugu yimid dhammaan maamuladii jiray marka laga reebo ahlusunna waljamaaca. dib ugu noqon maayo, midayn badan uma baahna. dhammaan madaxdii waxay uga tanaasuleen maamuladoodii dhismaha maamulkan.
sidaas awgeed dib u noqosho tiro badan ma leh keliya waxaa dib lagu noqonayaa in la tixgeliyo wixii hay-adihii dhisnaa ee maamulkaasi lahaa in laga tixgeliyo maamulka cusub haddii aan ku guulaystana waxaan tixgelin fiican siin doonaa golayaasha deegaanka iyo wixii baarlamaan iyo golo wasiiro iyo madaxweyne aan ahayn waxay ku dhammaanayaan maamulkan waxa ka hooseeya oo dhan waxay mudnaan doonaan tixgelin inay sii shaqeeyaan muddo ilaa dadku ay ka soo dooranayaan golayaashooda deegaanka iyo maayaradooda halkaas markaan uga baxo qodobka xiga oo faktorka taagan wuxuu yahay ahlusunna waljamaaca oo runtii tan iyo 2008 soo halgamaysay dhibaato badan soo martay deegaankaana ka celisay horarkii al-shabaab waxay maanta taagan tahay bannaanka maamulkan waxaan marka ku biirinayaa codkayga codadka ugu yeeraya inuusan maamulkani dhismin ilaa ahlusunna waljamaaca laga qanciyo waxaanan rajaynayaa in wadahadallada hadda socda ay guulaystaan mana mudnayn wixii la marsiiyey heshiisyo badan baa lala galay waa looga baxay kadibna colaado ayaa lagu furay iyo dagaallo in hinto ciidan iyo hub lasoo daabulo in dagaal lagu kiciyo marka aad baan uga xunnahay waxaana soo dhowaynaynaa runtii in ahlusunna waljamaaca ay maamulkan ka mid noqoto weliba sida ugu dhaqsaha badan ay ka mid noqoto puntland waxaan anigu haddii ilaahay yidhaahdo oo ay noqoto inaan ku guulaysto waxay noqon doontaa dowlad goboleed deris dad walaalo ah oo aysan ka dhaxaynin wax colaadi waxaa runtii horumarka iyo iskaashi walaaltinimo iyo derisnimo ayaan ku wada noolaan doonaa marnaba ma dhici doonto inay ka fishaan dhankeenna wax colaada amaba ay ka fishaan dowlad goboleedkii oo aan dhalan ay dhibaato ka fishaan marka waxaan ugu laabqaboojinayaa inaysan halkaa dhibaato uga keeneen waxaa jira dowladaha deriska ah runtii oo iyaguna conseen ka qaban amnigooda oo kooxo nabadgelyo laga yaabo nabadgelyo darre inay ka wadaan inay gabaad u malaynayaan inay gabaad u yihiin deegaamadaani waxaan iyadana garantiid siinaynaa inaysan deegaamadaani noqon doonin meel gabaad u noqota kooxo dowladaha deriska ah nabadgelyadooda yacni halkan uga duusha dhanka kale waxaa adduunkii marinkii biyaha ee soomaaliyeed ayaa isaguna dhibaato weyn lagu qabaa ascaartii adduunkao dhan way qaaliyowday dowladaha adduunkao dhanna waxay la qaaliyowday nimanka dhallinyarada ah oo halkan yacni dhibaatooyinka mar walbaba ka geysta marinada waxaan iyadana xal u heli doonaa arrintaas waa mahadsan tahay cabdikariim xuseen guuleed ayaan siinayaa waxaan se rabaa in aan dadka dib nooga soo biiray aan la socodsiiyo halka waxaa dood ku leh wadajir ah 6 ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo u tartamaya dowlad goboleedka galmudug soomaaliya dadweynaha hawada naga daawanaya waxaan iyagana la socodsiinaynaa inaan ku sugannahay magaalada cadaado ee xarunta gobolka galgaduud soo dhowo cabdikariim bismillahi raxmaan raxiim anigu waxay la tahay dhibaatada ugu daran ee bulshada soomaaliyeed guud ahaan haysata gaar ahaan dadka gobollada dhexe degan haysata waxaa ugu weyn qof kasta waxaa dareen wuxuu qabaa ah kalsooni xumadaasi oo ka timid cadaalad darri aniga qodobka koowaad xoogga saari doono insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa in qof kasta oo gobollada dhexe ka tirsan aan ku beero dareen ah in maamulka dhismayo iyo maamulka halkan ka abuurmi doono insha allahu tacaala uu dareemo inuu yahay maamul uu wax ku leeyahay oo lahaansho inuu dareemo qof kasta uu iska arko qof kastaahi uu dareemo maamulkaani maamul uu asaga leeyahay maamul mateli kara si dhab u mateli kara inuu noqdo ayaan qodobka koowaad xoogga saari doona kaasuu noqon doona insha allahu tacaala qodobka labaad si dadka kalsoonidooda usoo laabato is-aaminkooda usoo laabato waxaan aada xoog u saari doonaa inaan abuuro doodo iyo shirweynayaal aan bulshada qaybaheeda kala duwan oon isugu keeni doono oo dadku iscafin iyo tiiraanya bixin wax la yidhaahdo intaba ay xoogga saari doonaan maxaa yeele ummaddu haddaysan runta isku sheegin ummaddu haddaysan dareen warramin oo cudurba dareenkeedii aysan ka warramin dhibkii dhacay haddaan si saxa looga hadlin haddaan dib u heshiisiin sax ah aan la samaynin oo tuulo iyo degmo iyo deegaan aan dib u heshiis dhaba loo samaynin wixii foosha xumaa oo hore u dhacay haddaan xalaydheedaan la leeyahay inta la iska dhaafo si dhab ah oo xaqiiqo ah iyo siday u dhacday iyo xanuunkeedii iyo dareenka ee lahayd haddaan si dhaba looga wada hadlin waxaad moodaa aan si dhab ah iyo dib u heshiisiin dhaba imaanayn haddaan ummaddu dib u heshiisiin u imaanayna nin walba lugba u laabnaanaysa kalsoonidiina iyo is-aaminkiina ma imaanayso marka kalsoonida is-aaminka dhabta ah waxay imaan kartaa
marka intaasoo idin xoogga la saaro dhinaca kale maamuladii jiray runtii iyo shirweynaha halkan lagu qabtay intaba waxay raad u yihiin in midnimada ay sahlan tahay in runtii la beero maxaa yeelay shirkii halkan lagu qabtay iyo kii dhowsmareeb lagu qabtay intaba dadka dareen midnimo dareen inay wax wada yeeshaan dareen inay wax wada dhistaan ayaa wada beermay oo wada abuurmay maamulka halkan ka dhismi doonana wuxuu noqon doonaa maamul ay wada leeyihiin oo haddana beeskiisii ugu horreeyey oo ay dhammaan dadka oo dhan wada leeyihiin oo baarlamaanka ah uu ka samaysmay oo ka unkamay markaad kaa unbaa la-aanba qaadaya oo la dhammaystiraya arrintaas kale saddexaad oon aada xoog u saari doono wuxuu noqon doonaa inaan degmo walba iyo tuulo kasta iyo ceel kasta aniga iyo maamulkayga intaba aan kor tagno oon dadka dhibkooda dareenno oo dadka dareenka ay qabaan iyo dareenka ayaga dhexdooda ay isku qabaan intaba inaan soo taabanno oon dadka iyo bulshadu aan message nabadeed oo walaalnimo aan isaga gudbinno ayaan ayadana xoogga saari doonaa qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa suugaanta oo ah shayga ugu weyn oo dadka nabadda iyo messajka laisugu gudbiyey iyo midnimada inaan aada u adeegsado aad baad u mahadsantaha bashiir baan siinaya bismi illahi raxmaan raxiim anigu waxaan qabaa dadka deegaankan ku nool dadka soomaalida una fiican una dhaaqaq badan leeyihiin waxaan u hambalyeynayaa nimanka tanaasulka suubiyey sida galmudug xibin iyo xeeb sunna waa jamaaca haddayna tanaasulka suubin maanta halkaan iskuwan imaaneen midnimadan waxay ka bilaabataa walaalkaa wax ku ogolaado adna aad ka qaadato marka waa ku mahadsantihiin baan leeyahay odayaashiina tanano tanaasulay sunna waa jamaaca horta waxaan qabaa soomaalida sunna waa jamaaca weeye anuu sunna waa jamaacana laakiin nimankaas waa dirireen waa dagaalameen waxaana habboon xaqi ay tabanayaan in la siiyo ayagana waxaa looga baahan yahay tanaasul inay suubiyaan maadaama ay dad waaleen yihiin oo ay dhib badan soo galeen oo mushkilad badan ay galeen inay dadkooda u tanaasulaan haddaan dadka loo tanaasulin dhibkaas sii soconaya marka diintii bay naga badiyaan waa culummadeenni waa nabihii aan maaragtay runta aan aaminsanayne tanaasul weyn ha ka yimaadaan qabaa dowladdana waxaan leeyahay iyo qolada shirka wadda tanaasul weyn ha loo suubiyo walaalaheen waan u baahannahay kama maaranno waa magacay wataan magac naga dhexeeya weeye maadaamay dagaal badan iyo culays badan iyo geeri badan gashana dee wixii dhacay waa dhaceen waxaan qabaa maanta tanaasul ay suubiyaan tan kale dadka soomaaliyeed oo goboladan ku nool kulli waa isdhaleen waa aabba iyo hooyo iyo ayeeye iyo walaal tanaasulkoodu waa sahlan yahay waxay u taagantay qolo walba in loo tago layidhaha war maxaa kaa maqan maxaa dhib aad tabanaysaa maxaad dowladda ka tabanaysaa maxaad u baahan tahay ceel miyaad u baahan tahay ceelka loo qodo aye ma nolol kale u baahan tahay cawskaa waa daaqi kartaa dhulkaa waa socon kartaa ceel buur ilaa cawda dhul isku socdo xooluhu isku dhex maraan ay noqdaan dekedaan hobiyo weyn haddii naloo furo baabuurkii ka soo orda hobiyo cawda wuxuu tegayaa 2 saac ama 3 saac buu ku tegayaa xooluhu hadday socdaan saa u socdaan daaqi aadaan hobiyo bilaa baabuur bay furayaan marka waxaan qabaa midnimadu waa dadka ganacsiga loo abuuro oo si wada jira la iskugu keeno abnina la xiraan halkaas midnimada ka abuurmi karta waxaan leeyahay dowladaha dariska walaalaheena hadda kulli waa isku baahanna ayagu waa noo baahiyin annagu waan u baahanna inaan wada noolaano shuruucda caalamiga ah wada maaragtay aan dhowrno is ilaalino wixiina dhibayaan aan gacan wada jira ku wada qabanno marka haddii ilaahay yidhaahdo midnimadu waa furaha koowaad dadkaan hadda gobolka wuxuu u yimaad hadda cadaado 5 sano ka hor lama imaan karin maantana waa aragtaa waa midnimada lagu yimid wey waa sharafta lagu joogo wey marka waxaan qabaa wax kasta oo la tabanaya in la iska gudbo oo midnimo loo gudbo dadkana loo suubiyo shirar workshoopyo kulamo seminaaro isboorti cayaaro isdhexgal walaalnimo dadkan waa dad wada ehel wada qaraabay ehel hadday isku tagaan caawa ceelbuur cayaartooy tagto caadana tagto cawdaan tagto kalkacay tagto nabadii waa timid isdhexgalkii baa yimid marka waxaan ku talinayaa in dadaalka la sii badiyo aan laga caajisin oo qof walba intuu garan karo la isku darsado maanta hebel maxaad garanaysaa hebel maxaad garanaysaa arrintan ka warran la isku daro waxbaa imaanaya waxbaa soo ifbaxaya marka dadkan waxaan qabaa dadka ugu fiican oo soomaalida inay ka mid yihiin haddii beel loo wada jeediyo ay jeesan doonaan dowlad fiican ay dhisan doonaan ay midoobi doonaan axmed cabdisalaan ayaan siinayaa mar dhow haddii alla qadaro su-aasha saddexaad baan u gudbi doonaa laakiin labadiina aynu harsan sida horeba looga dhawaajiyay hadda kala qoqobka horey uga jira deegaankan mid beeleed maahayna beelaha deegaanku waa midaysan yihiin waana iska warqabaan heshiis badan oo waa yihiin haddana galguduud ka dhacay dhulsamareeb waxay ku guulaysteen inay intooda badani ka qayb galaan oo halkaa ku heshiiyaan kala qoqobkii maamulada ka jirana intiisa badani hadda waa ka halkaa cadaado ku dhammaado sida uu madaxweyne cabdiqabdi sheegayay runtii maanta tanasulkaa laisu sameeyey halkaa la isugu yimaado
cadaad waa wada joognaa waa ku midaysannahay waa shirka wada taageersannahay arrintaasna waa arrin labaad oo soo dhawaysa kala qoqobkii arrinta ka dhiman waxaan qabaa sidaan hore u sheegay in la dhammaystiro oo loo dhammaystiro kala qoqobka aan u jeedno inuu dhibaato hadda noo keeni doono inaanan hadda ka degdegin oo ah in shirka laga soo qaybgeliyo ahlusunna waljamaaca mar kale ayaan ku celinayaa ahlusunna waljamaaca intaan ka ogahay waa diyaar inay shirka qayb gasho dowladdu iyadaa mas-uuliyaddu saaran tahay inay la negoosheed garayso gaarsiisana inay shirka soo qayb galaan kala qoqobka kale oo ka jira bulshadu waa midka dadka degaankii aan loo tegi karin ee cadowga haysto ee shabaabka kor fadhiyo kaana wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo ee la nabadeeyo marka la nabadeeyana dadku waxay kasoo wada qaybgalayaan horumarka iyo nolosha intaa markaan ka soo haro dadka arrinta ugu muhiimsan aniga ee aan isleeyahay kala qoqob ee midnimada lagu muujin karaa waxa weeye dadka degaankan muddadii 25 sano ahayd waxa dhibaatada ugu badan ku ahayd waxa weeye xamar baa looga talinayay taladooda ayaa muqdisho jirtay madaxdooda ayaa muqdisho jirtay ganacsatooda ayaa muqdisho jirtay waxgaradkooda ayaa muqdisho jiray aniga waxaan rabaa in muqdisho iyo degaankan laba maamul oo kala go'an oo kala duwan ay noqdaan oo halkan maamul madaxdiisa leh ganacsadiisa leh horumarkiisa leh dhalinyaradiisa leh laga dhiso commitment in la galo aan muqdisho ku xirnayn intaana waqti yar bay u baahan tahay marka aniga commitmentiga iyo midnimada ugu dambaysan isleeyahay way u imaan kartaa degaankan waxa weeye in aan isugu tagno inaan halkan wada joogno inaan intii naga maqnayd ee horumarka ka samaysay ka tagtay degaankan dib ugu soo noqdaan runtii waan ku farxay maamulka galmudug markaan maalin dhaweed tegay gaalkacyo waxaa ka muuqatay horumar la yaab leh halkaa markaan xubin iyo xeeb imid horumar la yaab lahaa ka muuqday markaan dhuusbareeb tegay waxaa ka muuqday dadaallo badan iyo horumar badan marka deegaanadii gaargaar bay u kala hormareen halkaan markaan salka dhiganno oo aan halkaa wada fadhiisanno oo aan xamar waxba inaysan naga jirin aan garanno waxaa noo soo bixi doonta inaan horumar la yaab leh iyo midnimo iyo dadkeenoo kala qoobka aan u diidna ay ka dhacdo waxaan siinayaa maxamed bismillahi raxmaan raxiim runtii midnimada way fududahay in lagu dhawaaqa laakiin midnimada ficil ahaan in loo sameeyo aaday u adag tahay horta waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inay midnimadu ka bilaabato dadka musharaxiinta ah ee meeshan muxuu ahaa xilkan u taagan oo waxaa la rabaa ninkii xil waayaa inuusan iska tegin oo waxaa la rabaa inuu shaqeeyaa la rabaa anigu kulley haddaan helay haddaan helinba waa shaqaynaya midnimadana waa ka shaqaynaya muddo 20 sano ka badan ayaan gobolada joogay maamuladan muxuu ahaa saddexda oo laga dhawaajiyey iyo maamulo kale oo qabaa'ilada ku salaysanba waa la soo shaqeeyey ximan iyo xeeb baan la soo shaqeeyey markii la aasaasana goobjoog aan u ahaa ahlusunna waljamaaca aan la soo shaqeeyey markii la aasaasay goobjoog aan u ahaa galmudug sidoo kaleeta aad baan xoogaa lagu ahay saddexdaas maamul markaad fiirisid runtii kalama aysan qoqobnayn xiriir baa ka dhexeeyey way isu socdeen laakiin waxaan u suurtagelin maanta ka hor inay intay isu yimaadaan ay dhahaan aan ka baxno maamuladii kelida ah aan aadno hal maamul oo loo midaysan yahay marka runtii waxaa loo baahan yahay qabaa'iladana in lala tashadaa loo baahan yahay waayo maamuladaasi saddexdaa meelo aysan gaarin baa jira waxaa loo baahan yahay qabaa'iladaasna in la tixgeliyo maamuladaasna waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa ciidamadii ay haysteen ay u noqdaan aasaaska ciidanka u dhismi doona maamulka galmudug ayaa loo baahan yahay ahlusunna waljamaaca waa la ogyahay waxa ay qabatay iyo waxa ay macnaha ay ku fadhiso waa ognahay waana u muhiim runtii sida rag badan ay sheegeen shirka inay kasoo qayb galaan waa sugaynaa waxaan filaynaa in mataqaanaa la qanciyo sidoo kaleeto maamulada kale oo jooga waxaan rajaynaynaa iyaguna inay mataqaanaa ay maamulkan siduu u dhismi lahaa ay ka shaqeeyaan waayo midnimada ugu horeysa waxay tahay horta marka ugu horeysa meeshaan inaan laga tegin ayadoon maamul la dhisin haddii meeshan aan ka tagno ayadoon waxba laga dhisin horta waa noo dhammaatay runtii annagana waxay nagu tahay dhibaatay nagu tahay soomaalidana dhibaatay ku tahay marka meeshan maamul ha laga dhiso maamulada labada maamul ee ku yaalla gobollada dhexe ee soomaaliya mudug iyo galgudud waa dhextaalkii soomaaliya haddii meeshaas daawo laga helin oon maamul laga helin oon dowlad adag laga helin waxa weeye soomaaliyana way dhibanaanaysaa muxuu ahaa deriskuna wuu dhibanaanaya marka waxaan u baahanay inaan arrinta ayada aan wax ka qabanaa u baahannahay midda kale midnimadu sidii aan sheegay yaan loo arkin ciidamo la isku dalo waa in loo arkaa wax dadku ay leeyihiin midda kale dadka mudug iyo galguud ka soo jeeda haddii maamulkan aysan hareeraha qaban
oo aysan markii la dhiso aysan wax ka ilaalin, aysan wax ka difaacan, haddee ayagaa runtii u dhutin doona. marka waxaa nagala rabaa annaga nagala bilaabo ilaa dadka in la gaarsiiya laga rabaa arrintaa. waxaan sii doonaa markaan su-aasha saddexaad baan gelaynaa. Su-aasha saddexaad waxa weeye, waxaa la sheegaa in goboladan dhexe mudug iyo galgaduud ay xagga horumarka marka la eego wadooyinka iyo waxbarashada iyo caafimaadka aynan helin runtii muddooyinkii lasoo dhaafay ilaa intii dowladdii ay jirtay ay dhibaato weyne dhinaca ka soo gaartay. musharax, waa maxay siyaasadaada horumarineed ee ku aadan mudug iyo galgaduud? axmed cabdisalaam baan ku bilaabaya. waa mahadsan tahay. su-aashaas su-aal aada u muhiima wey, in aad ugu bilowdana waa ku faraxsanahay. marka koowaad, sidii hadda aan su-aasheedii hore jawaabteedii hore ku jirtay, dadkan inay wax qabsadaan waxaa gacan weyn ka geystay, oo inay wax qabsadaan ay uga baahan yihiin waxa way maamulada ay dhisanayaan. maamulka markaan dhisanno waxaa noo suurtagelaya inaan horta tala aan leenahay halka ka dhisanno, kadibna aan u tashanno waxa halkaa naga yaalla infrastructure-ka dadka ah, dhallinyarada, xoogga deegaankan ku jira ee u baahan in aan kobcino. dhibka ugu badan iyo horumari la-aanta ugu badan ee deegaankan ka dhacday eedeeda waxaa iskale mas-uuliyiinteennii ka shaqaysay in deegaankan aysan wax kaaba dhaqaala uusanba ka jirin. dalkan oo aysan ka shaqaysaa ka jirin deegaankan, oo aysan ka jirin jidad waaweyn. 25 sano ka hor wixii dowladdii Soomaaliyeed ay ka samaysay maahan waxba laguma darin deegaankan. arrintaasna waxay keentay in dib u dhaca maanta aan arkayno uu ka jiro. aniga meeshaan haddaan madaxweyne ku guulaysto dadaalkan hadda aan wado ee aad ugu doorataan, waxaan idiin ballan qaadayaa in waqti kooban aad ila dhaqaale oo aad ku tiirsanaan kartaan oo deegaankaan kuwa tiirsanaan karno ay ka dhismaan. waxaan aad uga shaqaynayaa in ganacsatada deegaankan u dhalatay ee Soomaaliyeed iyo kuwa kale inay dan u soo doontaan halkaan oo dib ugu soo laabtaan, oo halkaa ay suurtagal noo noqoto inaanu halkaan horumarino. dhaqaalihii waana dhex yaallaa, dadkiina waa haysanaa, deegaankiina meel ugu fiicneed buu Soomaaliya ku yaallaa. keliya waxaa naga maqan hoggaankii isu keeni lahaa intaasoo fursado. sidaad la socotaan, waxaan fadhinaa badda meesha ugu wanaagsan baan ka jirnaa. maanta 3 dekedood ugu yaraan ayaa ka dhismi kara deegaankeena, oo adduunkii uu diyaar u yahay oo na leeyahay goormaan idin dhisnaa dekedahan. aniga shirar waxaan fadhiyey heshiisyadaas lagu galayo oo la leeyahay goormaan dekeda dhisnaa, goormaan waqtiga qabana. waxay u baahan tahay waxa weeye maamul iyo amni. labadaasna waa midda maanta aan u fadhino. maamul midaysan inaan dhisano, amnigana sugano, kadibna adduunka aan ugu yeeroy development ku sameeyaan. waxaan kaloo sidaad ogtihiin waxaa derisna la dal 100 milyan cagacageeyey oo badxiran ku jira, oo annaga noo baahan, oo annaga duruufteena u baahan. markaan la qabsanno dalkaas deriska ah oo nujeed iyo waad ogtihiin Djibouti waxay leedahay maanta 7 dekedood ayaa lagu hayaa dhulkooda laga shaqeynaya, waana naga dhul yarta. marka annaga fursadaasi waxaan na dhaafinayay siyaasaddii iyo maamulkii iyo hoggaankii oo dhammaan ka tegay deegaanka iyo aqoontii iyo waxbarashadii. markaan halkaan ku soo celino oo aan fursad halkaan ka abuurro, waxaan si degdeg u dhisi doonaa haddii ilaa yidhaahdo kaabayaasha dhaqaalaha oo dekeduhu ugu horreeyaan iyo jidadku. kadibna waxaanu heli doonaa in infrastructurada kale ee lagu horumarinayo dhaqaalaha ee bulshada lagu horumarinayo aan dhisano.